qoysas baa ku nool waayo ninka u shaqaynaya ee jornaanti ka qaadanaya qoys uu ka soo tegay ka ciid qaadaya qoys uu ka soo tegay ka dhagaxa keenaya qoys uu ka soo tegay waardiyaha qoys uu ka soo tegay meeqa qoysa ku tiirsan warshada yarta maskaxdeena ha shaqayso reer muqdisho السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سوري ودا صاحب يال ميل walbo joogtaan صاحب yaal maanta wax miiska inoo saaran fiidiyowga halkaa idiinka muuqda fiidiyowgaas rag Soomaaliyeed ee qaarkood qurba joog ahaayeen ee wax bartay wadankooda jecel ayaa wadanka ku soo kordhiyay khaas ahaan wadanka Soomaaliyeed waa baaxad weyn yahay goobtan waxay ku taalaa magaalada Tani Boosaaso ee gobolka Bari حقيقياً marka la isku fiiriyo Soomaaliya inteeda kale xitaa maamul isku dar mع العاصمة raaci dadka reer Puntland waxay u egyihiin dad firfircoon wadankooda jecel dal jecel uu ka muuqdo dad jecel uu ka muuqdo waxaan tusaale yar u soo qaadanaynaa rag jooga magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Soomaaliya oo dhan dakhligeedu uu ka soo dhaco oo ka soo xiroodo ama uu ku xiroodo dadkaas waxa ka mid ah ka soo qaadanaynaa wasiir la yiraahdo Cabdullaahi wuxuu leeyahay hotel Elite 2012 oo wuxuu inoo sheegay inuu 30 milyan haysto marka laga reebo xeebtii ummadda Soomaaliyeed daraas ku qaatay dhammaan si sharci darraan uu ku qaatay oo ku dhistay marka laga reebo wadanka wuxuu ku soo kordhiyay shaqo kale ragaanad arkaysaan waa reer Puntland hal xaruntan iyo qaybo kale oo ka badan warshadahan waxay ku yaalin Puntland bal marka hadalkayga adoon cadiifadaysnayn oo qabyaalad aan u hadlayn ilaah ogyahay Puntland aanan ku dhalan laakiin dhalinyarada ka xamaalta ka shaqaysata hal laba qodob baan isku garab dhigaya warshadaas iyo laba warshadood oo kaleeto ilaa iyo 4 in gaarayaan baan u malaynayaa halkan ku yaala dhalinyaradaas qurba joog bay u badan yihiin waa rag wax bartay waa injineero waxa ay ka soo shaqeeyeen caalamkaas wadamo badan warshadaas yar ee aad u jeedaan qarashka galay 500 oo kun korba u dhaafay 1 milyan waa gaaraya 1 milyan waa uu gaaraya waxaan hubaa ninka dhalinyarada ee Muqdisho jooga 1 milyan iska dhaafasho 100 kun markuu helo 100 kun dollar markuu helo baasbar diblomaasiya hore laga siinaya wadanka waa uu ka tagayaa konton kun ku baxaya kontonka kale tan guri cooshada uu gadanaya wadanka qurbaha uu tagay asuu wuxuu ku noolaanayaa ducfi iyo dhibaato iyo qaxooti haddaba marka waxa isbarbar dhigaynaa koonfur iyo bari meesha la yiraahdo Hargeysa baan waxa ku arkay